secretary general waxa uu ka warramay dhaqdhaqaaqii iyo hawlihii xisbigu ku jiray sanadka committee centralkii hore ilaa maanta aad baan aan u dhageystay waana la socday sida uu u kobcayo u korayo xisbigu oo uu isku dayayo in uu ka kaaftoomo gacan kale isagu dhaqaalihiisa uu dhisto isagu dhaqdhaqaaqiisa uu ku wado wixii uu isagu leeyahay inaan la gaadho himiladaasi ayaa hortaba in ay dadku ogaadaan waxaan dhisnay waxaan gacanta ku hayno waxa aan dhisi doonno waxay abuuri doonaan jawi ama karti ayay abuuri doonaan u ogolaata xisbiga inuu ka xoroobo baahi uu ku shaqeeyo oo hawlihiisa uu ku guto dadka dee wanaagsan ee dalka jecel ee ayagu isku filan ee gaadhay inay magaranaysaa ay wax ay jecel yihiin inay gaadhsiiyaan oo ay xisbiga ku darsadeen dadka yacni waxyaalada ay doonayaan inay wax la qabtaan ma diidno ayagana waan soo dhaweynaynaa intaa talada dadka dadweynaheenu uu talada noo dhiibtay waxa aan ognahay dadkuna og yahay ilaahayna og yahay inaan daacad ugu shaqaynayno waxaan ognahay ilaahayna og yahay waxa weeye inaanan waxba aanan meel ka dhiganaynin midnimada qaranka ay noogu horeyso in aan adkayno wax lama taabtaana aan ka dhigno dadkeenna waxa aan isleenahay qaangaadh yaan noqonnay midnimadeenna haddii aan meeshii doona ha laga yimaado mar labaad lanama dagi karo maxaa yeelay muwaatinka waddankani waxa aan doonayaa ama aan gaadhsiinayba ama aan u dhownahayba haddaan idhaa waddan kale ma lihin ilaahay halkan uu nagu og yahay wixii aan u qaban karno inaanan waxba wax kale oon ka hagranaynay aanay jirin midnimada qaranka oo iyadu lama taabtaan ah waxa noogu xigay waxa weeyaan nin kasta oo muwaadin ah waajibaadkiisa inuu guto haddii facebook uu na dardariyo ama uu na waalo annaga oo hubna waxa aan samaynayno annaga oo haysana wixii aan ku runta ku soo celinaynay annaga oo haysana wixii xaqiiqadii ay xaggeena tahay in ma garanaysaa ee dad aqal gudihii ku jiro oo magaca internetkaba magaca internetkaba xumeeyey maxaa yeelay waa aalad ama agab loogu talagalay inuu cilmi fidiyo in loogu talagalay dadku isku barto loogu talagalay inuu aqoonta ka dhex helo maaha inuu dadka ka caayo maaha wixii jira si xun baa loogu camal falaa baan leenahay waxaasna wax annaga una haysta maahayna meel walba u jira war aanan run ahayn ayay fidinayaan been bay fidinayaan fitnad bay fidinayaan waxayna hubsan bay ka warramayaan maxay uga jeedaan khalkhal geliya ummadda ayay u jeedaan waan joognaadii waxaan u baahannahay in aan dadkeenna meesha uu wax ka sheeganayo
inaan u joogno inta halkaa bahalka facebooka warkii oo rogan oo xaqiiqadii ka dheer aad idinku ka helaysaan inaad goboladiina dhexdooda ka heshaan baa wanaagsan xaafadda inaad ka dhexeysaan baa wanaagsan dadka inaad ku dhex jirtaan baa wanaagsan in wala inijiijidan mushkilad male taas ya wixii xaqiiqada un bay imanaysaa wax walba inaad daacad ka nahayna way arkayaan idinkuna waxa weeyaan hawshiinu inaad garab istaagtaan in aad la qaybtantaan inaad la qaybtantaan dhibaato iyo wanaag farxad iyo geeri laba intaba inaad la qaybtantaan oo la joogtaan buu yahay sidaasoo xisbiguna uu hore ugu socon sidaasaana doorasho kasti oo la sameeyo aanan layniga badin karin dardaaranka aan dhiibaynahay waxa weeyaan soyons vigilants heegan inaan la ahaadaa la doonayaa heegan inaan la ahaado oo waddanka loo soo jeedo danihiisa la eego waxa aan soo qabanay inaa cidla cad la nooga bixiyo kuwa doonayay way iska hadleen waxaan rajaynaynaa inaan waddankeennaasi uu sida uu u joogo uu u socdo oo yacni adduunka wixii itaal aan leenahay aan ku muujinayno inaan mas-uuliyaddeenna ka soo baxayno mas-uuliyadda waddaninimo un maaha mas-uuliyadda qarannimo mas-uuliyadda dowladeed inaan ka soo baxayno in lanagu ogaado weeye in la arko inaan hadalka iyagu uuna laba noqon inuu mid uun yahay in danaheenna uunaan ka shaqaynayn ummadaha aan wax la qaybtamayno afrikaan hadduu yahay carab hadduu yahay international hadduu yahay intaba balaaskeennu waa la yaqaanaa meesha aan joogno inuu rag joogo waa la yaqaanaa waxay aan qabanayno codkayagu hoos uma yaalle saray buu u yaallaa wixii aan taakulayn karnana waan taakulaynaa wixii aan la dagaalgali karayna waan la dagaalgalayna xaqa hadday ku joogaan marka waxa aan yani xisbigeennu uu ka cawday secretary generaalku wuxuu yidhi war boqolkii faran baa laynaga leeyay waa sidee buu waa runtii de boqolka afarani maaha qiimo maaha lacagna ma aha waxa weeyaan calaamad waxa weeyaan waxaad ku muujinayso inaad dadka wax la leedahay inuu jiro xisbi aad wax ku darsatay inuu jiro boqolka faran macnay leedahay ma jiro laakiin waxaan lagu tusayaa in aan dadkeenna oo dhan aan la wadaagno boqolka faran carabkeenna iyo niyaddeennu inay isdhaaftana ma fiicno waxaan jecelnahay indhaha annagoo isku hayna inaan garanno ninka RBB ka kale